komishiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay bilowga diiwaangelinta codbixiyaha oo saaka guud ahaanba ka bilaabatay gobolka Togdheer 163 goobood oo ayaa loo asteeyay guud ahaanba gobolka Togdheer in laga qaato diiwaangelinta codbixiyaasha oo dhamaantood saaka 6 bilaabatay dadweynaha gobolka Togdheer ayaa safaf dhaadheer u galay sidoo u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta munaasabada ay komishiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ku shaacidayeen bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyo maayirka magaalada Burco ayaa tilmaamay sida diiwaangelintu uga bilaabatay magaalada Burco waana ku mahadsantihiin sida qiimaha leh oo uga qayb gasheen saaka ee kayuuga bacad kale u gasheen waa ku mahadsantiin waxaana loo baahan yahay in laga sii badiyo oo aanay idin dhibin bacadka taagantiin aanu idin dhibin intii saaka inay gobolkii Togdheer magaalo madaxdiisa aan joognay ka bilaabantay diiwaangelintii 163 goobood weeye 25 baa degmadan Burco badankoodii waan soo maray ilaa saaka 6 waan wareegaynay si fiican oo qurux badan bay u socdaan way jirayaan waa aalad inagu cusub oo technically waxyaabo yar yar way jirayaan laakiin boqolkiiba 90 oo u hagar baxeen komishanka qaranka gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame gudoomiyaha ku-xigeenka komishanka qaranka iyo xubno kamida gudidaasi ayaa ka waramay bilowga diiwaangelinta bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta inoo suurta galiyay inagoo nabada dalkeenii joogna inaynu u dareerno diiwaangelintii qaranka oo codbixiyaashii gobolka Togdheer dhammaan goobaha 163 goobood saaka 6 subaxnimo albaabadu u furnaayeen cilada yar way dhacayaan laakiin haddaynu taagannahay wax cilada oo technicala oo aynu maanta ninaana goobihii bay u fadhiyaan ma jirto saacadaynu taagannahay safafkii way socdaan waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland uu hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo gacan weyn ka geysatay shaqadaanu soo haynay in ay bilaabantay oo diiwaangelin loo dareeray riyal la ahay dadka waxaan salaahay intii noo mahadnaqday la shukra cala alwaajib shaqadeedii baanu qabannay mahadnaq uma baahnin annaga mahadnaqayna waayo waan nasiib badannay aad baana loo shaqeeyay fariin shakhsiga isdiiwaan geli muwaadin haddii aad xaq u leedahay isdiiwaan geliso haddayicin fursadda haddaad dayacdo adigu mid baad iska dayacday gobolkiina waad ka dayacday qarankiina waad ka dayacday marka isku day reer Togdheerow inaad isdiiwaan gelisaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi kulmiye mujaahid Muuse Biixi Cabdi xogayaha guud ee xisbiga wadani Maxamed Cabdilaahi Urcad iyo xogayaha xisbiga Ucud Cabdinaasir Yuusuf Qodax ayaa si isku mid ah uga mahad celiyay komishiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland shacabka gobolka Togdheer kula dardaarmay inay isdiiwaan geliyaan ummadda Soomaaliland iyo cid waloo ka qayb qaadatay doorashooyinkan diiwaangelinta codbixiyaasha ha ugu horeeyaan qaaran bixiyaasha xukuumadda waxa ka wada hambalyeynaya guddiga doorashooyinka oo ilaa imika hawshoodii si wacan u wata waxaan leenahay hambalyo guddiga doorashooyinka una halkaa ka sii wada waxa maanta inagu dadaa inagu waajiba inaynu dhammaanteen ka wada qayb qaadano codbixinta diiwaangelinta codbixiyaasha marka hore komishanka qaranka oo hawshan u xil saaran waxaanu aad iyo aad runtii aanu qiraynaa haddaanu nahay xisbiyada qaranka in gaar ahaan xisbiga wadani in ay u shaqeeyeen sidii ay mas-uuliyaddoodu ahayd haddaannu xisbigu u cidnahay waxaan halka farriin uga diraynaa dhammaan taageerayaasheeda meel kastoo joogaanba magaalo madaxyada gaar ahaan reer Togdheer waxaanu ku guwaabinaynaa inay kaalarka qaataan maadaama maanta fursaddii bilaabmatay wararka kale naga soo gaadhay degmooyinka ka mid yihiin Qoryaale Beledhig Duruqsi iyo Kalbare Qoyta ayaa dhamaantood waxay sheegayaan sidan si la mid ah in guud ahaanba ay uga bilaabeen diiwaangelinta codbixiyaasha Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Cabdi Sabkaroto telefishinka madaxa bannaan Soomaaliland Space Channel gudaha magaalada Burco